Iiraan waxay ballan qaaday in ay adeegsan doonto gantaalo aad u xoog badan, waxayna diiday wadahadal uu soo jeediyey Donald Trump. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa diiday sheegashada Mareykanka ah in barnaamijkooda gantaalada la burburiyey. Waxayna sheegeen in weli ay adeegsanayaan gantaalo tiro badan oo cusub, kuwaas oo qaarkood ay wataan madaxyada qaraxa ee miisaankoodu uu ka badan yahay 1 tan. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in haddii Iiraan ay joojiso maraakiibta shidaalka ee maraya marinka Hormuz, Mareykanku uu 20 jeer ka xoog badan yahay ama ka xoog badan weerar uu ku qaadi doono Iiraan. Handadaadan ayaa timid saacado kadib markii Trump uu sheegay in dagaalkan si dhaqsi ah uu ku dhammaan karo. Midowga Yurubna wuxuu sheegay in Ruushka uu ka faa'iiday dagaalkan. Gudoomiyaha Golaha Midowga Yurub Antonio Costa ayaa sheegay in ilaa iyo hadda Ruushka uu yahay dalka kaliya ee ka faa'iidaya dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jiraan Iiraan. Costa wuxuu sheegay sicirka shidaalka oo kacaya ayaa Ruushka siinaya dhaqaale uu ku sii wado dagaalka uu kula jiro Ukraine. Qalabkii militariga ee loo diri lahaa Ukraine ayaa hadda lagaga mashquulay xaaladda Bariga Dhexe. Indhaha caalamku waxay ka jeesteen dagaalka Ukraine maadaama dagaalka Bariga Dhexe uu noqday mid uu ka hadal hayn badan yahay. Wuxuuna sidoo kale ka digay in haddii colaadda sii kordhayso ama sii kororto ay halis gelin karto Bariga Dhexe, Yurub iyo dunida inteeda oo kale. Qaraxyo iyo duqeymo ka socda gudaha Iiraan. Wariyaal ku sugan Tehran ayaa sheegay in saacadihii ugu dambeeyay la maqlayay qaraxyo ka dhacay qaybaha bari ee caasimadda. Warar kale ayaa sheegaya in weeraro ay ka dhaceen magaalooyinka kale oo ay ka mid yihiin Isfahan, Tabriz iyo Ahvaz. Mas'uuliyiinta Iiraan waxay sheegeen in weerarada aargudashada ay sii socon doonaan inta loo baahdo, isla markaana aysan jirin wax xabad joojin ah oo hadda la filayo. Maraakiib ka cabanaya qarax u dhow meel ama Abu Dhabi u jirta meel yar. Hay-adaha kormeerka ama hay-adda kormeerka amniga maraakiibta ee UK ayaa sheegtay in markab ku dhow 36 meel badeed waqooyi kaga beegan Abu Dhabi oo uu soo sheegay in uu maqlayo buuq qarax iyo waxyaabo ama wax biyaha ku dhacaya oo u dhow markab xamuul ah. Dhacdadani waxay ka dhacday meel u dhow marinka Hormuz oo ah meel muhiim u ah maraakiibta shidaalka ee caalamka. Duqeymaha Israa'iilna ee Lubnaan oo barakiciyay 100,000. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee Lubnaan ay sababeen barakac aad u ballaaran. 100,000 oo qof ayaa ka barakacay ama ku barakacaya 24 saacadood gudahood. Tirada guud ee barakacay ama dadka barakacay tiradooda guud waxa ay kor u dhaaftay 667,000 oo qof. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in xawaaraha barakacu uu ka sii daran yahay kii dagaalkii 2024 ee Israa'iil iyo Xisbullah. 9 isbitaal oo Iiraan ku yaala oo shaqada joojiyay. Xubin ka tirsan guddiga caafimaadka ee baarlamaanka Iiraan ayaa sheegay 9 isbitaal ayaa burburay ama shaqada joojiyay. Daawooyin ku filan 6 bilood ayaa weli keed ahaan yaala. Qalliinada ayaa degdeg aan ahayn waxaana la hakiyay meel looga helo dhaawacyada dagaalka. Ruushka oo diyaar u ah dhexdhexaadin. Kremlinka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu soo jeediyey qorshayaal lagu yareyn karo xiisadda. Afhayeenka Kremlinka wuxuu sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay dhexdhexaadin ama xal kasta oo lagu dejin karo xaaladda Bariga Dhexe. Iiraan waxay sheegtay ma jirto xabad joojin bay tiri. Gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ayaa si cad u sheegay ma raadinayno xabad joojin, ciddii na soo weerarta waa in si adag cashar loo siiyaa si aysan mar dambe ugu fikirin buu yiri weerar ka dhan ah Iiraan. Haddaba waa maxay saameynta dagaalka ee shidaalka caalamka? Khubaro dhaqaale ayaa sheegaya in qiimaha shidaalka uu gaadhay ku dhawaad $120 halkii fuusto.
haddana hoos ugu soo laabtay qiyaastii $90. si kastaba ha ahaatee falanqeeyaal badan ayaa ka digaya in xaaladda weli aanan degneen, gaar ahaan haddii marinka Hormuz uu sii xumaado. Caruur badan oo ku dhintay dagaalka. Mas'uuliyiinta Iiraan waxay sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen 193 caruur ah. Kan ugu yarna wuxuu ahaa ilmo 8 bilood oo jira. Waxaa kale oo la sheegay in 52 xarumood oo caafimaad ah la weeraray, 29 goobood oo daaweyn ah iyo 16 ambalaas ah. Dad badan oo ka qaxaya Iiraan, Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in kumanaan qof oo Afghanistan oo ku noolaa Iiraan ay dalka ka baxayaan. Qiyaastii 2,000 oo qof ayaa maalin kasta u gudbaya Afghanistan si ay uga baxsadaan dagaalka. Isku soo wada duubo, dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil iyo Iiraan ayaa galay marxalad aad u khatar badan. Iiraan waxa ay diiday wada hadal iyo xabad joojin, halka Mareykanka uu ku hanjabayo weeraro aad u xoog badan haddii Iiraan ay farageliso maraakiibta shidaalka. Isla mar ahaantana duqeymo ayaa sii socda, barakac ballaaranna wuxuu ka socdaa gobolka.